bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka idaacadda shabeelle deecsana waxaa ka mid ah taliska ciidanka booliska oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen gaari iyo rag la tuhmayo inay ka dambeeyeen dilka mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka allaha u naxariistay xildhibaan cismaan cilmi boqore oo maanta lagu wado in aasaran loogu sameeyo muqdisho iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tacsiyeysay geeridiisa duqayn diyaaradeed oo lagu garaacay xalay deegaano hoostaga gobolka shabeellada hoose shir u dhexeeya madaxda carabta iyo midowda yurub uuna ka qaybgalayo madaxweynaha soomaaliya oo maanta ka furmaya dalka masar dowladaha soomaaliya iyo suudaan oo sheegeen inay ka shaqayn doonaan mideynta talisyada asluubta ee waddamadaas wasiirka cadaaladda soomaaliya oo sheegay isbeddelo lagu samayn doono arrimaha cadaaladda iyo maxkamadaha dalka wararka dibadda shabeelle subaxnimada indheesana waxaa ka mid ah ciidamada difaaca Syria oo ku dhow inay la wareegaan deegaanadii ugu dambeeyay Daesh maamusho iyo waliba Jarmalka oo dalka Lubnaan ka dalbaday in loo soo gacan geliyo basaas u dhashay dalka Syria soo gudbinta warka subaxnimo ee raadiyo Shabeelle waxa idin suurta gelisay warshada isbuunyada Shaaka doodarayaal tayasan iyo fadhi carbeed tayo wanaagsan u doona warshada isbuunyada Shaaka waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 24 Febraayo sanada 2019 warkaas oo dhan waxaa la diyaaraa Anisa Cabdullaahi Maxamed Anisa Anfac aad baad u mahadsan tahay guleed Cumar Xasan bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan dhageystayaal warkiyo fidsan taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen gaari iyo rag lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen dilka allaha u naxariistay xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Axmed Jimcaale kadib shir jaraa'id oo uu qabtay saxaafadda taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxay uga warbixiyeen tallaabooyinkii ay qaadeen kadib dilkii allaha u naxariistay xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha booliska Soomaaliyeed General Cabdullaahi Xasan Bariise oo xalay saqdii dhexe la hadlay saxaafadda ayaa hoosta ka xariiqay in ay gacanta ku soo dhigeen ilaa 2 nin iyo gaari ay wateen kuwaas oo la tuhunsan yahay in ay geysteen dilkaasi Allah ha u naxariisto waxaan uga tacsiinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya labada aqal xukuumadda waxaan leenahay Allah u naxariisto xildhibaanka waxaa dilay gacanka xaq daran dilkiisa kadib ciidanka booliisku wuxuu gacanta ku soo dhigay baabuurkii lagu tuhunsanaa eedaysanayaasha inay wateen iyo 2 eedaysan oo kale gacanta booliiska ku jiraan howlgalladiina hadda waa socdaan baaristii natiijadeedana hadda ma raba inaan hor dhaco laakiin waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno inaan kiiskaas laga seexan laguna raad joogo insha Allah ta'ala eedays dhagarqabayaashii gacantooda uu ku sababeystay in mar dhow la horkeeni doono cadaaladda haddii rabbiga awood la ogolaado intaas ayaan rabaa inaan anigu ku hadlayo magaca taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed tacsidaas ummadda Soomaaliyeed u gudbiyo shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii dablay hubaysan ay xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore ku dileen gurigiisa oo ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaana laamaha ammaanka dilkiisa kadib sheegeen in ay bilaabeen baaritaano xooggan oo ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dablayda falkaasi iyagoona shaaca ka qaaday in haatan kiiskaasi ay u hayaan ilaa 2 eedaysane kuwaasi oo baaritaano ay ku socdaan dhinaca kale allaha u naxariistay xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore ayaa maanta la filayaa in lagu aaso magaalada Muqdisho iyada oo geerida xildhibaanka ay tacsi ka direen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa qaada dhigaya wariyaheena Maxamuud Cabdinaasir Soofaysane allaha u raxmade waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasi doonaa xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore oo shalay gelinkii dambe lagu dilay degmada Kaaraan duugta marxuum Ekis xildhibaan Boqore waxaa ka qayb geli doona mas'uuliyiinta ugu sarreysa qaranka xubno ka tirsan golayaasha dawladda
iyo eheladii uu ka baxay. madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi u diray qoyska xildhibaanka iyo guud ahaan shacbiga soomaaliyeed, wuxuuna laamaha amniga ka dalbaday in baaritaan dhaba lagu sameeyey dilkiisa. sidoo kale waxaa ka tacsiyeeyey geerida xildhibaan cismaan cilmi boqorre madax uu ka mid yahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre, guddoonka golayaasha baarlamaanka, guddoomiyaha maxkamadda sare iyo mas-uuliyiin kale. xildhibaan fawsiye yuusuf xaaji aadan, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda oo la hadashay idaacadda shabeelle, ayaa si gaara uga tacsiyeysay dilka marxuum cismaan, maadaama ay aqoon dheer u lahayd islamarkaana ay ka soo wada jeedeen iyada iyo xildhibaanka gobollada waqooyi ee soomaaliya. aad iyo aad waa geeri naxdin leh runtii, aad iyo aad baan uga xumahay. waxay nagu noqotay shoog. nin oday ahoo madax ka soo ahaan jiray baarlamaanka, xildhibaanka noogu da-da weynaa, aad iyo aad loo wada jeclaa. marka ilaahay u naxariisto, ilaahay carruurtiisa iyo qoyskiisa iyo annagoo dhan iyo ummadda soomaaliyeedna samar iyo imaan ha ka siiyo. waa geeri naxdin leh runtii. xildhibaan boqor wuxuu ahaa nin aada u furfuran oo aada iyo aada u maaragtay dad jecel oo dadku isugu mid yihiin, oo daacada oo wadani ah, oo maaragtay hadalkiisa aan la laabanin. waxay la tahay markuu golaha soo galo ka sheega ra'yigiisa. marka ilaahay u naxariisto. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo, ehelkiisa iyo ummadiisana uu ka samariyey baa ka siiyo. nin qiimale buu ahaa, nin aada u culusna wuu ahaa. xildhibaan cismaan cilmi boqorre waxa uu xubin ka ahaa baarlamaanka soomaaliya muddo dheer, isagoo ka soo gelaya gobolka awdal ee waqooyiga soomaaliya, waxaana haatan inta uusan geeriyoon lagu tirinayay inuu ka mid ahaa xildhibaanada ugu da-da weyn golaha. xildhibaan boqorre waxaa lagu xasuusan doonaa sida dad badani qabaan in uu ahaa nin aan la gamban aragtidiisa marka uu ka hor hadlayo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya. diyaarado dagaal ayaa duqeymo xalay ku garaacay degana hoostaga gobolka shabeellaha hoose. mahad maxamed cabdiraxmaan mutawakil ayaa war amuurtaasi ku saabsan soo jeedinaya. deegaanada Owdhigle iyo Janaale oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose xalay waxaa ka dhacay duqeyn diyaaradeed. dadka deegaanka ayaa shabeelle u xaqiijiyey in ilaa 7 gantaal lagu dhuftay deegaanka Owdhigle, kaasoo dhaliyay khasaarooyin kala duwan. gantaalada qaar waxay sheegeen dadka deegaankiina ku dhaceen guryo ay deganaayeen dad shacaba. deegaanka Janaale isna waxaa ka dhacday duqeyn diyaaradeed, waxaana wararku intaas ay ku darayaan inay jiraan dagaal foolkafool ah kaasoo u dhexeeya ciidamo ka soo daatay diyaaradaha dagaal iyo dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab. dadka deegaanka saaka waxa ay sheegeen in xalay saqdii dhexe ay ka wada baxeen guryo ay ka deganaayeen deegaanadaasi. ma jirto ilaa hadda wax warar ka soo baxay dagaalyahanada xarakada al-shabaab ku aadan duqeyntii diyaaradeed ee xalay ka dhacday deegaanada Owdhigle iyo Janaale oo ku sugan yihiin dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab. waxaana xarakada al-shabaab la sheegay in dagaal foolkafoola ay la galeen ciidamada gaarka ee xalay ka soo daatay diyaaradihii. waxaana intaas ay lagu darayaa in dadka deegaanka gabi ahaanba xalay ay faarujiyeen deegaanada Owdhigle iyo Janaale oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose. shir u dhexeeya madaxda carabta iyo midowda Yurub oo uu ka qayb galayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta ka furmaya dalka Masar. jaamac maxamed saalax ayaa warkan eegaya. waxaa maanta lagu wadaa in uu ka furmo magaalada Sharm el-Sheikh shirka madaxda carabta iyo midowda Yurub ee dalka Masar. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada Sharm el-Sheikh ayaa maanta ka qayb galaya shirka madaxda dawladaha carabta iyo midowda Yurub. shirkan oo looga hadlayo arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii gobolka bariga dhexe loogu soo dabaali lahaa xasilooni ayna isaga kaashan lahaayeen dalalka shirkaasi ka qayb galaya. madaxdan isaga kala timi dalalka caalamka ayaa ka shaqaynaya qorshaha istiraatiijiyadeed ee nabad ku soo dabaalidda bariga dhexe iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay sidii dowladda Soomaaliya looga taageeri lahaa amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Soomaaliya oo qayb ka ah dalalka jaamacadda carabta ayaa ka mid ah dalalka lagu casumay shirkan, iyadoona lagu wado in madaxweynaha Soomaaliya uu hadal ka jeediyo shirkaasi isla markaana kulamo gaargaar ah la qaadan doono madaxda ka qayb galaysa shirkaasi. dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan ayaa sheegay in ay ka shaqayn doonaan
mideynta talisyada asluubta ee labada dal. cabdiqani bashiir xuseen ayaa warkan inoo haya. taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareeye guud bashiir maxamed jaamac oo xalay ka hadlayay sanad guurada 49 guuradii kasoo wareegatay aas-aaska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo xalay lagu qabtay xabsiga dhexe ee muqdisho ayaa shaaca ka qaaday inuu meel wanaagsan marayo qorshaha lagu mideynayo ciidamada asluubta soomaaliya iyo sidoo kale midka waddanka suudaan. sareeye guud bashiir maxamed jaamac ayaa carabaabay inay tahay tallaabo hore loo qaaday in xiriir dhinaca iskaashiga ciidamada asluubta dalalka soomaaliya iyo suudaan uu dhex maro, waxaana uu hoosta ka xariiqay in arrimahaasi ay ka wada hadleen taliyaha ciidanka asluubta ee waddanka suudaan sareeye guud xaatim al nuur cabduqaadir. wuxuu mar kale ka mahad celiyey soo dhoweyntii iyo walaatinimadii iyo furfurnaantu dalkan ku arkay. wuxuu sheegay maantay furitaankii aan furnay 4 tuulo ama la mid ah tii maanta dhan inay dalka bisha Juulaay ka furi doonaan. wuxuu sheegay oo waxay la yaabeen ay noqoto runtii maanta waxay arkeen xabsigii ama tuuladii cadaaladda oo ay arkeen maanta in furnay 4 noocaas in Juulaay laga furi doono dalka Suudaan. wuxuu sheegay in ciidanka asluubta Soomaaliya iyo ciidanka asluubta dalka Suudaan ay mid wada noqon doonaan, wixii ay haystaan wada wadaagi doonaan. hadalkan ayuu xalay ka sheegay taliya bashiir munaasabada 49 guuradii kasoo wareegatay aas-aaska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo xalay lagu qabtay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho. wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in isbedelo lagu sameyn doono cadaaladda iyo maxkamadaha Soomaaliya. wariyaheena Ismaaciil Axmed Maxamed Turki oo warbixin muurtaasi ku saabsan qalinka u qaatay ayaa halkan ka soo jeedinaya. xasan xuseen xaaji wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlayay munaasabad xalay lagu xusayay taliska ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa sheegay in isbedel ballaaran lagu sameyn doono arrimaha la xiriira cadaaladda iyo maxkamadaha dalka. wasiirka ayaa tilmaamay in ahmiyadda koowaad ay siin doonaan sidii loo adkeyn lahaa cadaaladda oo uu sheegay inay la mid tahay amniga, isagoona shaaciyay in madaxweynaha Soomaaliya dhowaan isbedel uu ku sameeyay garsoorka. in waxa laga qabto cadaaladda ahmiyadda koowaad amniga ay lama tahay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dib u habeyn buu ku sameeyey garsoorka oo ay maanta nagala joogaan garsooryaal maxkamada sare iyo garsooryaal maxkamada rafcaanka iyo maxkamada gobolka iyo degmooyinka. garsoorkana hanaanka cadaaladda haddaan ku guda jirnaa insha allahu inaan ka shaqayno. waxaan isku dayaynaa kaasna inaan dhammaystirno. waxaa kale taas barbar socda in golihii adeega garsoorka oo asaas u ahaa cadaaladda jiritaankeed inaan wax ka qabano. waxaa kale muhiim maadaama la furay xabsigii weynaa hadda keesiska maxkamadaha milatariga qaadi jireen qaar laga yaabo inay ahaayeen keesas madani ah in lagu soo wareejiyo keesiskaas maxkamadaha caadiga oo sibilka ah. taasna waan ka shaqaynaynaa anagoo weliba wada tashi la samaynay bahda cadaalad. wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waday dadaallo ay ku dardargelinayso arrimaha cadaaladda si wax looga qabto xaaladaha la xiriira arrimaha garsoorka. wax ka qabashada dhibaatooyinka garsoorka ayaa loo arkaa inay muhiim u tahay wax ka qabashada ammaanka guud ee dalka. halka aad warkaasi kala socotaan waa shabakada warbaahinta ee Shabeelle. ciidamada difaaca Syria ayaa sheegay in ay ku dhowan yihiin la wareegitaanka goobihii ugu dambeeyay ee kooxda Daesh ay gacanta ku hayso ee bariga Syria. ciidamada Kurdiyiinta ee Mareykanka oo taageero ayaa dad gaaraya 5,000 oo qof ka soo daadguriyay xaafadda Bagos tan iyo Arbacadii ayaga oo qarka u saaran in ay la wareegaan meelaha ay Daesh weli gacanta ku hayso. isbahaysiga Mareykanka ayaa ugu baaqi qaramada midoobay in ay gargaar bini aadanimo gaarsiiso dadka laga soo saaray dhinaca kooxda Daesh. Mareykanka ayaa qorsheynaya in ciidamada la magac baxay SDF uu ku wareejiyo deegaanada Daesh ay ka maamusho dalkaasi inta aysan ciidamadiisa u kala bixin dalka Syria. dowladda Jarmalka ayaa ka dalbatay xukuumadda Lubnaan inay u soo gacan geliso Generaal Jamiil Xasan oo ahaa madaxii sirdoonka ee ciidamada cirka ee Syria. maxkamadda heer federaal ah oo fadhigeedu yahay dalka Jarmalka
ayaa bishii juun ee sanadkii tegay soo saartay waaran lagu soo xirayo jenaraalkaasi kadib markii lagu eedeeyey inuu geystay dembiye ka dhan ah xuquuqda aadanaha. dacwadaasi waxaa dowladda jarmalka u gudbiyey qaxooti siiriyaan ah oo ku nool dalka jarmalka. jenaraalkan eedeysanaha ah ayaa haatan la sheegay inuu ku sugan yahay magaalada bayruud ee xarunta dalka lubnaan, halkaasoo u joogo arrimo caafimaad. jenaraal jamiil ayaa la sheegay inuu yahay nin si weyn ugu dhow madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad, isla markaana kaalin weyn uu ku lahaa dad dibadbaxayaal ah oo sanadkii 2011 lagu laayay dalka Syria. warkii subax oo aad kala socoteen idaacadda Shabeelle magaalada Muqdisho ee khiyaartana dhageysanaysa xilligan waynaga inta inta warkana hoosaga waxay dib uga heli kartaa barteena internetka ee radio shabeelle.com.